السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة ملك السوق تان كسر ودا جنال كيغا بشر محمد بردر برنامج كحوجة حقد اسبورتيغا oo alaaba idinku soo gudbiyo xogo badan oo idinka daahsan oo aan daaha idinka garago. Markan waxaan idinku soo gudbinayaa 10 laacib oo kubadda cagta qaarkood ku guda jira kuwana ay ka fariisteen kuwaas oo ah kuwa ugu caansan ee isticmaala waxa loo yaqaan tattoo-ga isla markaana ku soo xarra si waaliyan oo isticmaala waana kuwa ugu caansan ee caanka ku ah tattoo-ga. Tani waa astaan ay ku muujinayaan aaminsanaantooda iyo waxa ay dareemayaan. inta ugu badan ciyaartooyda kubadda cagta ayaa ah kuwa isaga dayda isla markaana ku soo bandhiga qaybo kala duwan oo jirkooda ah. Sababta arrintaasi ay ugu soo bandhigaan ayaana inta ugu badan wax la iska weydiiyaa, balse waxaa la ogaaday in ay tahay arrin la xiriirta caqiido iyo rumaysanaan ciyaartooyda ay rumaysan yihiin waxa loo yaqaan tattoo-ga. Ciyaartooy badan oo kubadda cagta ayaana isticmaala waxaana ay ku soo qortaan lugaha, boodyaha, garbaha iyo meelo badan oo jirkooda ah iyagoo si waaliya u isticmaala tattoo-ga. Qaarkood ayaa ku xusa waalidiintooda oo dhinta, qaarkood ayaa ku soo qorta astaamo kala duwan oo ay ka mid yihiin gabdhaha ay jacaylka iyo xiriirka la wadaagaan. ujeedooyin kala duwan ayayna u isticmaalaan inay ku soo bandhigaan waxyaabaha kala duwan oo ay aaminsan yihiin. Haddaba 10 ciyaaryahan ee kubadda cagta ugu caansan ee isticmaala tattoo-ga ayaan idiin soo gudbinayaa. Qaarkood kubadda cagta waa ay ka fariisteen halka qaarkoodna ay ku guda jiraan. Booska koowaad waxaa ku jira xidiga lagu magacaabo Antonio Griezmann, waxa uu ka mid yahay liiska ciyaartooyda isticmaala aaminsan tattoo-ga. Labaad waxaa ku jira kabtaanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos oo si waaliya isugu soo xardha tattoo-ga isagoo jirkiisa qaybo badan oo ka mid ah si waaliya xidigani u soo marsada isla markaana ku soo bandhiga. Booska labaad ayuuna ku jira. Saddexaad waxaa ku jira Daniel Agar, xidiga lagu magacaabo Agar ayaa ka mid ah xidigaha sida aadka u isticmaala waxa loo yaqaan tattoo-ga. xidigana booska saddexaad ayuu ku jira. Afraad waxaa ku jira Marcelo oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Madrid, isaguna waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda caanka ah ee isticmaala aaminsan tattoo-ga. Shanaad waxaa ku jira Neymar Jr, kaasi oo isagu si aad ah u marsada tattoo-ga isla markaana ugu soo bandhiga qaybo badan oo jirkiisa ka mid ah. Lixaad waxaa ku jira 10 ciyaaryahan ee ugu caansan ee isticmaala tattoo-ga aaminsanna xidigii hore xulka qaranka England iyo Manchester United kooxo badan la soo maray oo Real Madrid ay ka mid tahay ee David Beckham ayaana booska lixaad ku jira, isagoo xidigan aad u isticmaala isla markaana jecel tattoo-ga jirkiisana qaybo badan oo ka mid ah isagu marsada. Sidoo kale toddobaad waxaa ku jira Toby Alderweireld, xidiga Tottenham iyo sidoo kale xulka qaranka Belgium ayaana booska toddobaad ka soo galay. xidigan ayaana qaybo ka mid ah jirkiisa uu aad ugu soo xarraa tattoo-ga. Sideedaad waxaa ku jira xidiga lagu magacaabo Dani Alves, waa mid ka mid ah xidigaha aadka u isticmaala tattoo-ga isla markaana aaminsan. Sagaalaad waxaa ku jira xidiga lagu magacaabo Zlatan Ibrahimovic, kaasoo si waaliya tattoo-ga u isticmaala isla markaana ugu soo bandhigay qaybo badan oo jirkiisa ah. xidigan ayaana aad jirkiisa ugu dhaawacay isla markaana sida cilaanka dumarka u marsada tattoo-ga, isagoo kale ujeedooyin iyo hadafyo ku aadan inuu ku soo bandhigo waxa uu aaminsan yahay. Booska ugu dambeeya 10aad waxaa ku jira kabtaanka xulka qaranka Argentina, mucjisada kubadda cagta Lionel Messi. Booska 10aad ayuu ku jira 10 ciyaaryahan ee ugu caansan kubadda cagta ee isticmaala tattoo-ga ama waxa loo yaqaan shaabadda. xidiga kooxda Barcelona ayaana isagu si waaliya u isticmaala tattoo-ga isla markaana u jecel, waxaana uu ka mid yahay 10 ciyaaryahan ee ugu caansan dunida ee isticmaala tattoo-ga. Xilli ay xusid mudan tahay in xidigaha marsada tattoo-ga aanu laga shubi karin dhiigooda isla markaana qof aan lagu tabrici karin, sidoo kalena leh waxyeelo iyo khataro badan oo la xiriira dhanka caafimaadka. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii xisaab badneed ee ku aadan 10 ciyaaryahan ee ugu caansan dunida ee isticmaala tattoo-ga ama shaabadda. inta barnaamijka dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.